السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا bahda Barlab Africa meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kooban kaasoo aan kaga hadli doono asxaabta doonaysa inay akoon furtaan akoonkaas ha ahaado mid challenge iyo mid akoon live ah oo iyaga gaar ay u leeyihiin sida Africa Barnaamij inay ka furtaan brokerada gaarka ah haddaba maxaa la gudboon maxaa la rabaa inay qabtaan si aad la socotaan sanadka waxaa ka harsan in yar oo kooban haddaba bishani aan ku guda jirno ee November ee suuqa uu dhaqaaq aad u baaxad u leeyahay haddaba December ayaa soo socota oo suuqa fasaxa uu gali doono sidoo kale waxaad ogaataa January ilaa December inta u dhaxaysa suuqa inuu ahaan doono mid iska dawameeraysi ah isbiriidi waaweyn oo ku furmaayo haddaba adigu marka lacagtaada inaad haysatid wax ku dhaama ma lahan goormay furanaysaa marka ee ku wacan tahay inaad akoon aad qaadatid ama challenge aad mid gaar aad u leedahay ahaataba xilliga ugu fiican waxay tahay inaad January dabayaaqadeedii aad akoon furatid February ayaa kugu soo aadan sidoo kale inta kale too xigta bilaha aad ay wanaagsan yihiin bila waxa jira suuqa oo saameyn leeyahay iyo bila waxa jira suuqa oo san saameyn ama dhaqaaq aad u mug leh oo san lahayn waa inaad kala garan kartaa haatan haddaad qaadatid akoon challenge ah oo aad tiraadid waqti ka gaarsii November inta ka harsan waad la socotaa waa in yar kooban Decemberna suuqa maalmaha ugu horeysa marka laga reebo maalmaha dambeeto December suuqa inuu jawi kala galaayo qof walba oo trader ah oo ula socya sidaa darteed asxaabta bahda Barlab Africa mar walba asxaabteeda waxa ay la talisaa talooyinka ugu wanaagsan ee qof ku haboon suuqa sida aragteen shalay waxa ka soo baxay warar aad u waaweyn sida CBI waa wararka ugu baaxad weyn sida NFV oo kale iyo FOMC wararkaas CBI ayuu ku gaar yahay sometimes waa uu ka baaxad weyn yahay sida arkaysaan suuqa hadda jawi kale ayuu galiyay oo dhaqaaqay waaweyn ayaa suuqa ka dhacay sida arkaysaan marka sidaan oo kale marka suuqa ka dhaco maxaa adiga laga baahan yahay maxaa kula gudboon inaad u kaadisid ilaa suuqa uu xal ama waji gaar ah oo ka yeelanayo sababtoo ah suuqa meel ayuu soo buuxinayaa firfircoon gaabiya ama OB ha ahaado ama target la qaadi raba ha ahaado suuqa meel ayuu la socdaa adigu haddii rulkaaga aad ka heshid trade mar walba xanaana oo aad qaadan kartaa laakiin rulka haddii trade-ka wax ka dhiman yahay marnaba ha ku degdegin suuq hal maalin kaliya kuma eka sidoo kale mar walba waxaad ku daydaa inaad samaysid more back testing suuqani waxa ka gulgaari kara waxay tahay qofka back testing fara badan sameeya qofka ku celceliya qofka joogteeya qofkaasi ayaa ka mir dhalin kara guulaha uu doonayo runtaa waxay tahay qof walba maanta suuqani heer sare ka gaaray waxa uu soo maray wada aad u adag taasoo ay tahay time inoo ka baxay energy ka baxay ona ka baxday waa saddex shay dunida ugu qiimaha badan marka time baad haysataa bilahani sida November oo hadda bayaaqa ah iyo December kaliya harsan intaasi isku day inaad suuqa aad xooga saartid haddii aadan akoon gadanayn oo aadan lacag ku shubanayn labadan bil maxaa kula gudboon waana xirfadaada asar oo sii qaada oo diyaar garowda iskarigo intaana furunta la geen diyaar garow adina marka u diyaar garow wax kasto ku iimaanay haddana laakiin u diyaarsanin waxaad ogaataa inaad ku jabi doontid sidee taas u dhicin haatan ayaad haysataa dadaalkii iyo waqtigii aad halkaasi bari aad kaga gudbi lahayd bundadii aad mari lahayd hadda sii samayso si ay kula saahnaato markuu sanadka cusub bilowdo la idinkii tan xigta su'aalo fara badan ay asxaabteena soo weydiiyeen oo ku saabsan qaabka loo trade gareeyo USD hadii waxa jira USD ku trade gareeyaan sometimes bahda Barlab Africa waa ay ku trade gareysaa sida aragteen shalay oo kale CBI ina wada qaadanay balse newska inta badan ardaygu markuu yahay mid cusub waa looga digaa sababtoo ah newsku maahan mid 95% as dhihi karto halkaasi ayaa ugu waafaqaya waa ay jiraan dadyo analyze gareeya kadibna qaata balse analyze-kaasi inta badan waa uu ku waafaqaa sometimes loo ka soo horjeesta laakiin ogsoonow hadduu ka soo horjeesto akoonkaaga inuu risk ku jiro sababtaan u leenahay newsada ardayda cusub aysan ku trade gareyn waa sida oo newsku inta badan sometimes marba ka soo horjeesa kara marna waa ku waafaqi karaa
marka haddiiba 50-50 ay tahay maxaa ku wanaagsan marka inaadan trade gareenba oo gebi ahaanba aad iska dheefto. haddaba niyuusyada qaababka iyo meelaha laga eego waan isla arki doonaa oo muuqaalo waxaa ka mid noqon doonaan oo aan asxaabta la soo wadaagi doonaa ilaa idinkii. haddaba sanadka cusub haddii la wada gaaro bahda Berlab FX waxa ay soo gudbin doontaa arrimo fara badan oo ku saabsan traderka ha ahaado mid psychology. bahda Berlab FX waxay inta badan u taagan tahay in asxaabteeda ay dhiirigeliso ee wax walba u qaban karto